waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida lagu qabtay xuska 18aad ee maalinta calanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. xuska maalinta calankani oo halku looga dhigay calankeena waxa uu astaan u yahay midnimada qarankeena, madax bannaanideena, dib u curashada dalkeena iyo barwaaqa soorankeena ayaa waxa lagu qabtay barxadda xafiiska golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida. munaasabadani waxaa ka qayb galay madaxweynaha deegaanka Mudane Mustafa Maxamed Cumar, afayeenka golaha xildhibaanada Marwaayaan Cabdi, mas'uuliyiin, odayaal, ciidamada kala duwan ee dalka iyo kuwa deegaanka iyo marti sharaf kala duwan. madaxweynaha oo munaasabadani ka hadlay ayaana xusay in maanta ay tahay maalin aynu ku xaqiijinay midnimada iyo jiritaanka bulshadeena, isagoo shacabka ugu baaqay inay xukuumadda kala shaqeeyaan dadaalada iyo horumarka la gaaray 7 sano ee la soo dhaafay. waa maalin aan ku xaqiijinayno xuquuqda aan ku leenahay dalka iyo ka ahaanshaha dalka. waa maalin aan sidoo kale xusayno faa'iidooyinka siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee aan ku haysano calankaas. waa maalin dalka oo dhan midnimadiisa in lagu muujiyo loogu talagalay. marka intaasba iyadoo maskaxdaan ku hayno waxaan leeyahay hambalyo xuska 18aad ee maalinta calanka dalka. xuskan maanta aan xusayno halkan 18aad wuxuu ku soo beegmay xilli barnaamijyo waaweyn dalka ay ka hana qaadeen, kufaakac fara badan kadib isbeddelkii dhacay 7 sano ka hor. waxaa hubaala in deegaanka Soomaalida aan nahay deegaanka ugu horeeya ama deegaanada ugu horeeya ee ka faa'iiday isbeddelkii dhacay, hadday tahay dhanka nabadgelyada, dhanka ka qaybgalka siyaasadda, ka qaybgalka dhaqaalaha dalka iyo weliba dhaqaaqa ganacsiga iyo xorriyadda shacabka si guud marka loo eego. tusaale toddobaadkii dhawaa waxaa magaalada Addis Ababa ka dhacay xaflad lagu abaalmarinayay 700 oo qof oo ka mid ahaa dadkii ugu sarreeyay ee bixiyay canshuurta dalka, canshuur bixiyaashii dalka ugu wanaagsanaa oo heerar kala duwan ah, koowaad, labaad, saddexaad, bilado la kala siinayay. toddobaadkii hore wuxuu ka dhacay Addis Ababa. waxaan u malaynayaa tiro aad u badan, kulli aan isleeyahay boqolkiiba 12 bay noqonaysaa ama 20 ka badan, 70 qof 80 qof oo Soomaali ayaa ku jiray. dadkaas waxay ahaayeen dad dhaqaalaha dakhliga ay soo xareeyeen sanadkii ugu hooseeya uu ahaa 32 milyan, ka ugu sarreeyana uu 600 milyan soo xareeyay. waxaana nasiib noo ahayd inaan aragno Soomaali badan oo ka qayb galaysa. waxay muujinaysaa dadkaas badankoodu waa dad Addis Ababa iyo aagga ay ka shaqaysta oo dhoofinta iyo soo dejinta qaybka ganacsiga. waxay ku tusaysaa ka qaybgalka dhaqaalaha ee dalku inuu bilow fiican uu ka jiro. innagu Soomaalidu dad ganacsiga ku fiican baan nahay, laakiin hadda ka hor fursado noocaasi ma jirin. inta halkan taalo ma la isku cidhiidiyay. waa arrin muujinaysa in dadaal fiican xagga uu ka jiro iyo ka faa'iidaysi wanaagsan in la sii xoojiyo u baahan. dhanka siyaasadda, hadday tahay xisbiga iyo hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay maamulka Addis Ababa laftigiisa hore aan wax ugu lahayn, intaba waan ka warhaynaa maanta meesha tagtaba mas'uuliyiin deegaanka ka soo jeeda in loogu tagayo. waxaa kale oo ka warhaynaa in dhanka mashaariicda ugu waaweyn ee dalka laga fuliyey oo ugu dambeeyeen kuwii hadda ra'iisul wasaaruhu ka dhagax dhigay gobolka Shabeelle iyo gobolka Qoraxay, inay ahaayeen mashaariicii dalka ugu waaweynaa. ugu yaraan 10 bilyan oo dollar mashaariic ah oo deegaanka laga dhex dhigay oo Kenya aan ahayn ma jiro. marka taasi waxay caddayn u tahay hadalkan hore ee la leeyahay waxa aan ka faa'iidnay isbeddelka ayaa caddayn u tahay. waa daliil muuqda oo tirsan oo la tilmaami karo weyn. waxaa kale oo ogtihiin isbeddelkii kadib dhanka horumarka walow aan lahayn 100% dadku meel walba uu joogo baahidiisi waa la kafeeyey. taasina ayna dhadhoweyn maadaama meesha laga soo bilaabay aad u hooseysay, haddana in waxyaalo ididiila ah oo wanaagsan ay ka muuqdaan dhammaan tarafyada deegaanka meel kastoo la tago iyo caasimadaba. marka maanta xuskaas arrimaha ku soo beegmay waxaa adigaan lanaga rabaa inaan la nimaadno aragti sax ah oo kaga faa'iideysano oo sidii haddaba 7 sano aan uga soo faa'iideysanay wixii caqabadaha inaga hor yimidna aan uga dabaalanay sidii si lamida shacab iyo dawladna waa isku duuban
inaan ka faa'iidaysano oo aan nolosha dadkeena wax kaga bedelo ayaa maartayna fara dhamaanteed. geesteeda waxaa munaasabadani ka hadashay afhayeenada golaha baarlamaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida Marwo Ayaan Cabdi. mudanayaal marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaad nagala soo qayb gashaan xuska calanka oo markii 18aad la xusayo heer dal oo dhan hal ku dhig looga dhigay calankeenu wuxuu astaan u yahay midnimadeena qaran dib u curashada dalkeena iyo barwaaqo soorankeena. golaha wakiilada shacabka oo go'aamiyay in isniinta ugu horeysa bisha diqinta in la xuso sanad kasta bayaanka tirsigiisu yahay 863 isbaara 2002 qodobkiisa labaad ee wax ka bedelka lagu sameeyay ayaa loo go'aamiyay in sanad kasta la xuso xuska calanka. calanku waa astaanta madax banaanideena wada jirkeena qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee dalku waxay hoos joogaan waa calanka waxa mideeya waa calanka dhamaantood. calanku marka waa midnimadeena qaran iyo isku xidhka shucuubaha kala duwan ee dalka ku wada nool. sidaa darteed waxa inoo waajib ah in aynu wada ilaashano calankaas oo aynu ilaashano nabadgelyada aynu haysano. dad badan baa u soo dhintay u soo dhaawacmay heerka maanta aan joogno ee nabadgelyada ah iyo barwaaqada aan haysano ee ku faanayno ku naaloonayno waxayna soo gaarsiiyay waa calanka. marka calankeena waa inaan ilaashano. fariinta sanadkan waxa weeye calankeenu waa astaanta xorriyadeena iyo ilbaxnimadeena. calankeenu wuxuu astaan u yahay qarannimada iyo xorriyadeena. calankeenu waa mid ka turjumaya hanaanka iyo horumarka dalkeena. ugu dambeyn bulshaweynta ku dhaqan dalka Itoobiya waxaan leeyahay bagu Ilaahay nagu simay xuska 18aad ee maalinta calanka dalka. hambal idin leeyahay. maalintani ayaa ina xasuusinaysa halgankii loo soo maray helitaanka calankani iyo mas'uuliyadda naga saaran ilaalintiisa, sharaftiisa iyo dhaqangelinta qiyamka uu matalo.